الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kastoo dunida ka joogtaan ba ku soo dhawaada barnaamijkeena dooda ee telefishinka MMTV oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono afayeenada xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka ee kulmiye iyo wadani oo marti ay noogu kala yihiin Cabdinaasir Buuni oo ah afayeenka xisbiga kulmiye iyo afayeenka xisbiga wadani sidoo kale waxaanu ku soo casuunay مسؤوليينta xisbiga mucaaradka ee u cid doodan inay nagala qayb galaan balse doodaasi markii ay gabagaba ku dhaweyd xisbiga u cid waxa uu ka soo xaadir waayay ama uu ka cudur daartay inuu doodaasi uu ka qayb galo dooda waxa idin la socodsiin doona anigoo Maxamed Cabdi Iliga ujeedada dooda ugu weyn xurkeedu yahayna waxa ay tahay 3 sanadood oo ay uga dhiman yihiin maalmo kooban xukuumadda xisbiga kulmiye maxaa la qabtay maxay si dadku filayeen maxaa si bulshada ku noqday doodan ayaa waxaynu ku eegi doonaa qodobada ugu muhiimsan ee nolosha dhaqan dhaqaale ee bulshada reer Somaliland ay ka filayeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo halka ay taagan tahay iyadoo dadweynuhu ay ku kala aragti duwan yihiin waxa la qabtay iyo waxa dhiman aragtidaasi mid lamidana ay qabaan xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidku kala duwanaanshahaasi mid lamida haddaba dooda waxa aan ku horeysiin doonaa bal asxaabta mucaaradkaahi fikirka ay ka qabaan xukuumaddu waxa ay qabatay iyadoo uu inoo joogo dhinaca kalena afayeenka xisbiga kulmiye oo arintaasi isaguna dhinaciisa ka falanqeyn doona kaalmaha ay xukuumaddu ka geysatay 3 sanadood barka jaamac batuun ayaan ku soo dhaweynaya bismillaahir rahmaanir rahiim wad ma santahay maxamed cabdi ilig adiga iyo bahda TV-guba waxaan u baadnaqayaa walaalkii Cabdinaasir oo afayeenka kulbiya oo madasha isaguna jooga runtii damaanadu tolaan anagu hadalnay qiimeyn baanu sameynay mas'uuliyadda guud ee dalka naga saaran waxa weeyaan toosin iyo tilmaam hadba xukuumadda talada dalka haysa inaanu ummadda u ifino barnaamijkii dalka lagu hagayay ee doorashada ku galeen si loogu talagalay wax ma uga qabsoomeen mise uga may qabsoomeen doodayadu waxa weeyaan wixii xukuumadda loo doortay inaanay waxba ka qabsoomin sababta soo leenahay waxa weeyaan xukuumaddu cidda mas'uulka ka tahay waa anaga cidda cashuurtooda qaada waa anaga cidda wakiilka shacabka aan codkoodu meel dheer gaaraynin inay wax ka yiraahdaan waa anaga marka si kooban markaan u ururiyo waxaan isleeyahay filashadii xukuumaddu 3 sano kadib ummadda weli fajac baa haysta doorashadii 2017 dhacday waa doorashadii waxaan isleeyahay ugu adkeydee dalka ka dhacday inta Somaliland 3 sano sanka la gashay doorashadaasi wixii xaafadeed bay yeelatay oo xisbinimo ka tagtay doorashada kadib tartamayaashii kuraasta u tartamayay 3 oday waxa ku soo baxay madaxweynaha hadda talada dalka ay Muuse Biixi filashada markaa doorashada kadib wixii la filayay waxay ahayd marka koowaad ummadda kala tafaraaruqday ee ku kala aragti duwanaatay doorashadii ee hab qabiliya xitaa u kala fogaatay midayntooda mas'uuliyadda madaxweynaha bale inuu ummadda midayo madaxweynuhu iyo xukuumaddiisu ay dadka isku soo jiidaan iska daayay kuwii muruqooda maskaxdooda maalkooda geliyay ayaa intuu isu shiriyay ayuu wuxuu dhinacu dee qofku markuu madax noqdo dardaar inay duco ayaa waag marna isagaa lala dardaarmaa marna isagaa loo duceeya intuu madaxweynuhu hadalkii qaatay waxaan lagaba filayn ayaa bishimihiisa ka soo boday wuxuu yidhi fartiinaad eedi doontaa marka waxaan doonayaa uun waxqabadkan waan u geli doonaa 3 sanadood waan u geli doonaa waxqabadka 3 sano waxa laga filayay arrimaha dibadda kow Somaliland waxa dunida ka iibisa waa 2 factor waa doorasho iyo ictiraaf dunida ka hesho doorashada waan u geli doonaa ictiraafka Somaliland dunidu aqoonsanayo halkii horta xukuumaddu dhigtay garaafkee ayuu gaarsiisay ma hoos buu dhacay mise garaafkeedu sare u kacay kow waxa ilaha adeega bulshada aasaasiga oo ee caafimaadka ee waxbarashada ee wadooyinka ee leyrka
ee biyaha ah maxaa bulshada ay u qabata xukuumaddu saaxsanno miisaaniyad bay maamulaysa daraska miisaaniyadda xitaa shalay la sii daayay maxaa ka qabsooma wax laale iyo wax ka qabsoomay ballanqaadyadeedii oon 3 shay ahayn oonu sheegnay mooyaane wax kale maxay tahay saddexda shay isaga noo sheegay maxay saddexda shay qarsanta infrastructure oo kale waxa laga filayay in wadooyin fara badan la sameeyo waxa laga filayay in dalka la geliyo ila dhaqaale oo wax soo saar dalka u noqdo waliba maaska iyo muruqmaalka rajo loo abuuro nololeed waxa laga filayay oo kale marka laga hadlayo waa kaabayaasha dhaqaalaha markaan ka hadlayo waxa laga filayay oo kale de barnaamijyo balbalaaran oo intan ka balaaran oo de buugan ku qoran waa kan buugoodii de buugoodii waa kanoo waa 2017 2022 waana 6 tiir 6 tiir buu dul istaagay cabdinaasir buuni afayeenka xisbiga kulmiye ayaan siinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin maxamed cabdi ilig iyo bahda telefishanka MMTV iyo walaalkay barkhad oo matalaya ama ku hadlaya afka xisbiga mucaaradka ee wadani aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa run ahaantii haddaan ku soo dhawaado waxa dee su-aashaad barkhad ku horreysiisay waxay ahayd maxaa u qabsoomay 3 sano ee aad ku dhaliilaysaan waxa weeye xisbigan talada haya ee kulmiye ee xukuumaddan maanta joogtaa ka dhalatay barkhad si toos ah uu gudagelin waxa way buuggan uu sito iyo waxa way iyo dhaliilahooga rasmiga ay hayaan wuxuu ku horeeyay doorashadii dalka ka dhacday 2017 oo uu sheegay in ay ahayd doorashadii abid ugu adkayd horta doorashadii abid ugu adkayd ma ahayd doorashooyin ka horeeyay madaxtooyo ayaa dalka ka dhici jiray doorashadii ugu horeysay ee dalkan madaxtinimo ka dhacday wuxuu tartanku ku dhex maray daahir riyaale iyo waxa way Axmed Siiraaye iyo Faysal Cali Waraabe tiradii ugu yarayd ee farcididood ba lagu kala qaaday isagoo Axmed Siiraaye cabqari siyaasi ah xisbi weyn hogaaminaya ayuu aqbalay oo la ballaadhnay oo u yeeshay inuu aqbalo dadkiisii taageerayaashiisiina uu u sheegay oo waxa way doorashada laga helay marka doorasho aynu galaynana dalkan waxa yaala nin guuleystay nin guul dareysta xisbi guuleystay xisbi guul dareysta ama xisbi guuleystay laba xisbi guul dareysta oo waxaynu dhiganay way marka haddii aanad u lahayn la ballaadhni iyo geesinimo aad dadkaaga ugu sheegto waxa weeye in doorashada laga helay de maxaad marka horeba kursiga madaxweynaha ka soo doonaysay sideed sadal u hogaamin lahaydeen wadani hadaatiin waxa weeye inaad shacbiga reer Soomaaliland isku wadaan haddaad aqbaliba weydeen doorashadii aad arkaysay waxa weeye 80 iyo dheeraadka ahayd lagu kala badiyay maxaad samayn lahaydeen haddii 80 codna sidii Axmed Siiraaye la inaga heli lahaa taatiri waxa weeyaan kala qaybsanaanta dalka de kala qaybsanaanta dalka doorasho dhacday doorasho markay dalka ka dhacdayna xukuumad baa timiday labadii waxa way xisbi mucaarada sida qaanuunku dalku sheegaya automatically waxay noqonayaan xisbiye mucaarada inaad shaqadiina qabsataan baa haydo si dadku u midoobaan doorashooyin baa lagaga baxayay doorasho markiiba shaqadiinii u horeysay qabataan waxay noqotay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maalintii la dhaariyay 4 December 2017 wuxuu miisaaniyaddii 2018 ku daray doorashadii golaha wakiilada iyo doorashadii golayaasha deegaanka 4 bilood kadib xisbiga wadani waxay si rasmi ah u soo saareen guddi doorasho 2 sano waqtigoodu harsan yahay inay raadaan kalsoonida kala noqon iyagoo hab qaanuuniyan aanu maraynin sharciyad ay dad nimankaasi ku eedeynayaan aan jirin marka qaybsanaanta uu sheegayo shacbiga waxa dimuqraadiyadda loo sameeyay in lagaga baxo waa doorashooyin iyaga 3 sano hor taagna guddiday waxa way diideen 2 sano ay markii dambana khubara waxa way commission oo aqoonsadeen oo soo saareen marka waxa way xisbigani waa xisbi jaahwareer siyaasadeed uu soo waajahay waxana mana haystaan mistaaqiye siyaasi oo ay dalkan ku hogaamiyaan ama ay ku caaridaan oo shacbiga reer Soomaaliland u sheegaan waxaad ku soo noqotaa afayeen mudane maxaad 3 sanadood qabatay 3 sano waxay dadku idinka filayeen ma gaadhin naga filayeen waxay ahayd dalka Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ahaado qaran madax bannaan inuu ahaado qaran Soomaaliland oo waxa way kaabayaashiisa dhaqaale iyo kaabayaashiisa horumareedba ay xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi 2017 aakhirkiisii soo baxday inay wax ka qabato arrimaha dibadda arrimaha gudaha caafimaadka waxbarashada biyaha waxa way hirgelinta dimuqraadiyadda
isku wadista dadka waxyaalaadkaasoo dhanba waxaanu aaminsannahay inay tahay xukuumaddii ugu wanaagsanayd ee muddada 3 sano iminka ay ku dhowdahay haddaan tusaale fudud kuu soo qaato waxa weeye waxaan wax ka qabanno arkaysaa iminka wuxuu yidhi kaabayaasha ama arrimaha bulshada dadka sida tooska u taabta waxaad og tahay maanta iyadoo xukuumaddaasi ay muddo kooban ay joogtay inaanu dhammaystirnay oo 25 kilomitir ama 24 kilomitir wax ka yar uu nooga harsan yahay wadadii 284 kilomitir ahayd ee waxa weeyaan ceeri gaabo inay maanta gabagabo ku dhowdahay oo maantada aynu joognana aynu arkayno in waxa weeye wasiirkii iyo dad badan oo Soomaaliland birmigeyday ay joogaan marka nimankan ay dhaliilayaan xisbiga waddan iyo barxad ay maalintii dhaweytana ay soo qaatay waxa weeye wadada ceeri gaabo budget bay leeyihiin dastuuriya oo waxa weeye xisbiyada lagu kabo oo waxa weeyaan aanu siinaa weli intay isxilqaameen waxay xukuumaddu qabatay bit by bit intay usoo dul istaageen may odhanin wadadii ceeri gaabo ee halkaa ay ka qaadeen ama ay ballan qaadeen waa nagaa dul taagan halkaasii taagantay hargeysa ka caytama qodobadaada qodobayso arrimaha bulshada maxaad ka qabateen caafimaadka waxbarashada iyo wadooyinkaas aan ka qabanay waxbarashada Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee xukuumadda Muuse Biixi ay joogtay ee la tayeeyay kaalmihii ugu horeeyayna dugsiyadeena maanta aad arkayso iyo imtixaanaadkii u dambeeyay ee dhawaan la galay waa markii ugu horeysay ee iskuulada dawliga ay kaalmaha hore ka galaan waxbarashada Soomaaliland taariikhda Soomaaliland way maxay ku timiday tayeyn iyo waxay ku timiday siyaasad cad oo xukuumadda madaxweyne Biixi ay u dhigtay maxay ku tayeysay marka maxay ku tayeysay qaab nuuciyay u tayeysay qaabka waxa u tayeysay kow waxa dalkan jiri jiray musuq badan baa jiri jiray musuq maasuqa xukuumaddan xididada u siibtay waana takeliha ma eg musuq markaan ku leehayna dhinac kasta u galaa tacliintu galaa biyuhu galaa caafimaadku galaa arrimaha dibaddu galaa arrimaha guduhu galaa bulshadu galaa waxaasoo dhanba xukuumadda maanta joogtaay xididada u siibtay waana siyaasadda keli hatay maanta xisbiyada mucaaradka iyo dad badan oo suuqa ka hadlaya ku caaradeen xukuumadda maanta joogtay Muuse Biixi muxuu xididada ugu siiday musuq maasuq way marka muxuu kaasa waxbarashadii tayeeyay waxbarashada waxay ku tayeeyay siyaasad cad oo xukuumaddu lahayd iyo waxyaalaad badan oo musuq uu ku yahay oo xididada loo siibay maxaad aaminsantahay waxbarashada iyo wadooyinka marka laga hadlo qodob baynu u geli doonaa waxyaabaha laga hadlay ee wax ka qabashada u baahnaa ama 7 qodob ee ugu waaweyn si dooduna ay u soo koobnaato marka qodobada uu Cabdinaasir ka hadlay wax laga qabtay tayada waxbarashada maxaad ka aaminsantahay qodobadiisa horta Cabdinaasir uu baasay midba ku saxayay doorashada markaynu ka hadlayno mas'uuliyadda doorashada qabashadeedu cidda saaran tahay waa madaxweynaha oo hadda diideen inay qabato حسن استماع بليس وانكو دغيسنا كما دخغلين انا نحضلو meesha inuu miir doorsoon jiro oo madaxtinimada mas'uuliyadeeda laga leexinayo waxa daliil u ah dooda imika miska taala adigan ku weydiinayaa ama isaga baan weydiinayaa dalka inay doorasho ka dhacdo ma shaqo cirro u taala mana shaqo Faysal u taala mana shaqo xisbiyada u taala dalka inay doorasho ka dhacdaan mas'uuliyadda koowaad waxay saaran tahay madaxweynaha talada dalka iyo xukuumaddiisa iyaga haya budgetka iyaga haya ciidanka iyaga haya nabadgelyada iyaga haya dalka taladiisa taas waata annagu doorasho doon baan ahay tabashadayada commissionka saanu doonin meeshu ma aha supermarket qof iska leeyahay annaga key stakeholder qabiilna ma maamulo cid kalena ma maamusho waa arrimo qaran commissionkuna waa siir walay qofka garsoorka ah maxkamadaha sharciga aanu garanayn malaha walaalkay maxkamadaha qofka victimka ama dadka dacwadu u dhaxayso wax xaq u leeyihiin in garsooraha ay ku qanci waayeen judgmentkiisa inay duraan for the first procedure waa laga bedelaa oo garsooro kala loo doorta neutrality iyo kalsoonidii aanu ku qabnay siqadii commissionka aanu ku qabnay baad ka doodaysaa kadibna taayadiba u dhacdo wata la kala daray imikana waa ta doorashada qabsoonaysa war dhageyso war horta dhageyso war been ma sheegnay dhageyso laba doorasho kulmiye qabtay midna tii golaha deegaanka ahayd oo dhiig ba ku daatay midna waxa ahayd tii madaxtooyadoo dadkiisna weli alaanka qaar baan xabaalaha xitaa isugu tay oo iyaguna ay ka helayeen inay dadka kala farfaraan taa doorashada bartaasa ka leey waxbarashada iyo barnaamijkeeda horda waxaan aynu ka hadlaynaa ilaan hadal iyo huraag lama wada facts and figures baa miska la yimaada si academic inuu doodana
xukuumad baanu qiimeynayna 3 sanadood dalkan iyo dadkan ka mas'uula waxay qabatay iyo waxay qaban wax xukuumadda uu sheegan karayo ma ikaadim wuxuu sheegan karayo ninka la yiraahdo Cabdinaasir maaha waxa uu sheegan karasana maaha waa hal irmaan oo dalka iyo dadka ka dhaxaysa caanaheeduna cadaalad iyo sinaan iyo nabadgelyo iyo wadajir iyo xuquuq muwaadin horta u kaadi laga baxsho qodobka ku soo dhawaanay anu facts and figures baan wataa buugani waa 2017 iyo 2020 ma aha hadal iyo horaar waxa miiska waxbarashadu ka hadlaya karwaati waxbarashada barnaamijka waxbarashada ay ku galaan waa 6 tiir kan wuxuu soo galay arrimaha bulshada oo caafimaadka ka koob waxbarashada ka koob waan kuu sheegay wala dhegeysan kuu sheegay waxbarashada barta waxa ku qoran waxaanu dhisi doonaa secondary waa barta ma ku qoranta waxaan ka been sheegay ma bal hal secondary dalka Muuse Biixi xukuumaddiisu ay ka hirgeliyeen ummadda maqlaysaa noo sheeg waa qodob laba horta dhegeyso war marka ka baxa gal siyaasad ka baxo dhegeyso war siyaasadna ma jeexi karaysaa war waxa waliyo waxa jeexday ma jirtay doodeeda dhigeyso waa tare doodeeda dhigeyso دعوت اللي جيسان كونا دعوتها قلت بوجن محمد ويكاد بليسي كان بوجن علمي بدأ علمي جواك كعربي بقول يسكن وحنا كان لما روايدنا وحنا كان واحد يقضوني ندو كاد محمد يقضوني الناس ولا ما دي من بنت بالشده وشيكتين ما شيء واربنت بالشده هذا شيكتين واربنت بالشده انه شيء ما بيجي ساعه الغلب واربنت بالشده بيجي dhegeyso adigoo mahadsan qodobada maxay yihiin atwala weeyso dawladda inuu wax ka qabo weydii kaabayaasha dhaqaaliga arrimaha okay hada waxaad isdhegeysan dabuubi waa beenta bulshada u sheegteen war beenta bulshada u sheegteen ma sheegnaa dhegeyso dama ha dhegeyso war dhegeyso adigoo mahadsan haladii qadoonaysa hadii qadoon waa kale dhegeyso soo ku sheegay waxay yidhahdeen computer labis si tayo marka ay waxaanu ka hadlaynaa waa tayo marka tiisu uu leeyahay waxbaan tayeeyey computer labis baanu iskuullada dhiganaa gaar ahaan qaybta sayniska secondariyada hal iskuuloo 6 gobol ee dalka computer lab xukuumaddiisu ay dhigta hasha waa facts and figures waxaan ka soo bal horta dhegeyso waxay yidhahdeen waxaanu samaynaynaa dugsi kaste oo gobol kasta ku yaala gobol kasta waxaanu ka dhisaynaa 7 library hal library oo qaranka loo dhisay si aqoonta dhalinyarada ay u kobacdo waa dhagax dhig looga baahnee sheeg 3 sano joogtay annagaa noo riwaayadeen riwaayad baad ka shaqaynaysaa har sheego wakaas hal library ha sheego xukuumaddu ay dhistay library wax waxay sheegeen waxaan ku gabagabeynayaa waxaa deeqa waxbarasho sanduuqa deeqaha waxbarashada Somaliland oo ilaa heer PhD ayaanu sameeynaa sanduuqa xagee ku sameeyay bal ummadda u sheeg taas waa waxbarashada markuu ka hadlayo okay caafimaadka ila waxaanu ka hadlaynaa basic needs caafimaadka 3 sano u dhamaaday oo sanka la galay iska daa Somaliland inay MCH ka dhisaan iska daa inay cusbitaal ka dhisaan dhaqaalaha ugu badan ee muwaadiniinta Somaliland wuxuu ku baxaa dhakhaatiirta Turkiga iyo Hindiya wasiiradooda xilka ka haya iyo iyagoo xukuumadda iyo xisbigooda aan cusbitaalka weyn Hargeysa oo kii 1953 Ingiriisku dhisay ayaa tayadiisa ayna isku aamini kareen qof mas'uul la dhigi kareen Yurub taawdo listan 300 oo mitir buu u jiraa madaxtooyada dhan ee madaxweynaha xafiiskiisa ku yaala waa ta keentay iyadoo dalku xaalad cajiiba uu galay oo dunida ay kala xidhmato coronavirus uu ina galay intay awoodi kari waayeen oskajiiniye ambalaasyo inay u dawarsi tageen shirkaduhuna intay oskajiinadii iyo ambalaasyadii keeneen
loo dhiibay 9 milyan oo dollar meesha geeyeen iyo xisaab xidh ay sameeyeen ma jirto marka kaasina waa kii caafimaad waa caafimaad war dawaa kan ku qoran caafimaad alladii dawaadeer waa kan soodig dawadii kan qoray waa kan caafimaad waxaad tiraadeen waxaanu ka samaynaynaa tiraadeen ceeri gaabo hospital baanu ka dhisana ummadda u sheegay hospitalka ceeri gaabo ka dhisan 3 sano xanaaneedan ka dhisin waxaad tiraadeen boorman hospital weyn oo isku filnaansha ka dhisana maxaad ka dhisteen waxaad ku jirta meesha la yiraahdo burco maxaad ka dhisteen waa kuwii siyaad bariye ingiriisku ka tageen bal inaad rinjiyeysaan caafimaadka iyo waxbarashada iyo intaa si guud adiga uga hadlaya kaalinta maanta taagantiin iyo dhaqaalaha geliseen iyo adeegii bulshada waxa iska bedelay si aynu bulshadeena daawanaysayna ay meel u timaado ay u fahmaan dooda la isku hayo maxay tahay fahankaaga guud raagi maayo waan uga jawaabay waxbarashada heerka aanu maanta gaarsiinaan ku barqad wuxuu raadinayaa qol ma qasinta la qaato xadhiga laga jaro xoolo laguma xireynayo dadkii iyo siyaasadii cadayd ee waxbarashada haddaana dalka u jeexin dee dhismo fooqoo la dhisay macna ma sameeyo laakiin waxaa muhiima inaad siyaasad cad oo waxbarashadii Somaliland oo maanta anagu dalkan waxa weeye 5 sano iyo 10 sano oo maanta madaxweyne qaanuunka Somaliland Muuse siinayo demaa laakiin waxa nalooga baay 100 sano soo socda wixii nalooga ayla siyaasad cad baanu taa ka sameeyay wala markii u horeysaan ku ee Somaliland ay dhacdo iskuulada dawladdu inay kaalmaha hore waxbarashada ka galaan intaasana tayo kugu filan oo qofku qalinkiisa waxa weeyaan uu ku meel maro arinta caafimaadka Somaliland oo dhan maanta markaad eegto heer iyo heer degmo ilaa tuulo ilaa gobol meel aan MCH ka dhisnayn meel una isbitaal ka dhisnayn oo saddexdaasna waxaanu gaarsiinay umul roorku dadkii uu ku dhacay iyo dumaradii waxa weeyaan ambalaasiyada waayay in maanta meel kasta xukuumadda iyo xisbiga kulmiyaba looga soo mahadnaqayo oo og tahay maalin walba in wasiirka caafimaadku fadhiisan laayay oo waxa weeyaan 10 tuulo intuu isku maro iyo intaasoo MCH maalin walba xadhiga ka jaraya de haddayna iyagu waxa weeye waxyaalaadkii loogu talagalay budgetka iyo siyaasadda qarankan in lagu hormariyo waxaanu xisbi ahaan miisaaniyadda dalka lacag baa loogu daray haddayna iyagu intay hargeysa ka tagaan war hadday hargeysa ka tagaan de orodtag ceerigaabo orodtag oo boorama tag booramadan iyo ceerigaabada soo qabatay 3 isbitaal baanu ka dhisnay ceerigaabo de orodtag oo wasaaradda caafimaadka u tag oo ceerigaabo tag oo soo arag oo indhaaga ku soo arag buugayagunba jacayl ku sidataa iyo hargeysaad ka hadashee gobolada tago budget baad leedahay miisaaniyadda xisbiga lagugu siiyay intaad baxdo baabuur qaado tago shir jaraa'id ku soo qabo halkay wax ka qabteen laakiin buugayagan jacaylka haddaad u sidato dee barqadow ruuxdaadii hadday joogto waxa weeye kulmiye xisbigaaguna wadani joogo ood kulmiyaalka ku sidata dee iska kaale xisbiga jacayl baad u sidataa horta buugan horta saalba ku jira horta wali ma tidbaad bixin oo toddoba cishaabad xisbiga xilkiisa haysa xog badanna kama haysid oo waaba taasa daliileed iska kalifan tahay walaalo horta ma dhigayso may qodobada ku soo anu intaan dalka xog ka hayaa kama haysid horta dhigayso buugan kulmiya tahay inta qorto miyaad garanaysaa aan ku soo dhawaad inta qorto buugan aan ku soo dhawaad inaan xog haynin baa cadeynaysaa buugan inta qorto sheekh qarab baa qoray lama qorin ayaa qormaada qoray xisbigaaga qoray qofka qoray qofka maxaa ka rabaa qofka raadisay waa qofka ku muuqdo cilqaba oo qofka raadisay war waxa sheegtaa adduunka qof lama ataaga bulshooyo dadkan caayis iska daayo siyaasadda xisbiga qortay oo dad baa qoray wasiirka warfaafinta Soomaaliya aad u dirteen baa qoray Ismaan Dubad baa buugan ka qoray buugan Soomaaliya waa jecel oo qadar iyo Soomaaliya lacag lagaaga soo diray waranaga meelaha Soomaaliya qodobaynu ka wada hadlayna barkhad qodobayn suuri iyo barkhad qodobaynu ka wada hadlayna buuga halkaas ka dhig qodobaynu ka wada hadlayna aynu qodob ka wada hadlayna موضوع برخط بولي موضوع دودة موضوع دودة موضوع دودينا موضوع لبدي هذا كذي كعلي موضوع دودينا بدل موضوع دود وحويان bulshaa ina daawanaysa ummad baa wax loo qabtay masiirkoodii iyo mustaqbalkoodii nololeed baa laga hadlaya mustaqbalkii nololeed
wadaadina waxaynu ka wada hadlaynaa waa mustaqbal nololeed weeyaan barkhad iyo buuni barkhad iyo buuni aniga barkhad aniga buuni hadalkuu kaa xidhin barkhad hadalkuu buuni barkhad hadalkuu kaa xidhin barkhad hadalkuu kaa xidhin barkhad hadalkuu kaa xidhin barkhad hadalkuu kaa xidhin barkhad buuni barkhad hadalkuu kaa xidhin hadalkuu kaa xidhin hadalkuu kaa xidhin fadlan aba maasan hadalkuu kaa xidhin dad baynu warramaynaa waxaan jecelahay bulshada masiirkoodii iyo mustaqbalkoodii nololeed ayaa miiska inoo dul yaalla waxaynu ka doodaynaa ummadda somalilan ee dhaqaalahoodii iyo noloshoodii iyo rajadoodii mustaqbalka meesha loo wado ayaynu ka doodaynaa waxaan jecelahay inaynu ku soo ururno oo aynu bulshada tooda ka hadalno oo aynu si fahan u hadalno buuni dhaqaalaha Soomaaliland waa ka baxay qodobka dhaqaalaha Soomaaliland may shakhsiya weerarleesha ma yaalo shakhsi weerarleesha ma yaalo aniga xuquuq baan leeyahay xuquuqdan leeyahay markuu aniga igu leeyahay wada ay tamaysaa ayaan ugu ma sheegin waxa yiri facts and figures baan soo bandhigay waa si degan baynu wada hadlaynaa taa iska la buug xisbi ku guuleystay oo aad ku guul daraysay way Soomaaliya isaga horta markuu ay ka hadlay annaga mucaaradadayada qofkan hogaamiya waa Cabdiraxmaan Ciro oo Soomaaliland idab iyo akhlaaq ka suntan horta aan isla fahmin ma mucaaradad dal jacayl ka muuqdo aan fawdo iyo mucaaradad fawdo iyo balbaas aan ka sheekay barta dhageyso wata markuu anaga lagu leeyahay aggressive party iyo saasati hogaamiyahayga horta aan wadna dadkan ka ibnaa wakan 12 sano baarlamaanka hogaaminayay sharci kale haato dalka looga aayo kamaad tagin hogaamiyaha sheegaysaa maxaa sheegaysaa 2008 Cabdinaasir de Muqdisho inaga yimid oo ku maqnaayay 2008 horta dalka muu joogin ana waramay isaga 2008 iyo 9kii waxa dalka ka dhacay horta dhageyso horta wixii ka dhacay nimanka maanta dalka madaxda ka uu doodayo ayaa inta madaxtooyada hor istaagan bay laangaabka degad baan kaga saaray ay cid haday ay tamayso هذا ما ديره barkhad adigoo midaynu kusoo noqonaynaa waxaynu kusoo noqonaynaa oo muhiima meesha shakhsi buuni iyo barkhadi ma yaallo ay buuni iyo barkhadina ma taalo dhaleecayn shakhsina meesha ma taalo xisbiye qaran oo ummadda Soomaaliland masiirkooda gacanta ku hayay matashaan dood waxay tahay maxaa la qabtay 3 sanadood maxaa sadhiman maxaa la gabay maxaa la qaban doona maxaa harsan qodobadeen waxay dhaqaalaha ku soo qodobka dhaqaalaha Soomaaliland dhaqaalaha isbedelkeeda 3 sanadood maxay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ka qabatay maxaa la taaban karaa ummadda u sheegi kartaa maanta barkhad 3 sano ayaa noo dhamaanaya hadii ay baqadara December taaynu ku jirna bartankeega waxana aasaas noo ahaa inaanu dalkan wad ogeydo isna uu ogaayo xisbiga waafkiisa ku hadlayana uu ogaayo siday u baaxaadagaysay ay u ruxmaysay lacagta shini Soomaalilandkii maalintu kaysay maanta Soomaaliland shilinkeega sidoo u fariistayna marxaatay ka yihiin iyaga laftirkooda iikaadi waxaanu sameeynay siyaasad cad oo dhaqaalaha dalka lagu hogaamiyo maxaanu sameeynay dad u ehela ayuu madaxweyne Biixi u magacaabay haday tahay bangiga dhexe Soomaaliland iyo gudida boorka ee waxa weeyaan dhaqaalaha Soomaaliland hogaamisay waxa weeyaan bankeena fadhigoogu yahay ayuu madaxweynuhu magacaabay siyaasad cad bay dajiyeen waana tamaanta lacagteena ku fadhiisatay ay mar kale hata u ruxmi weyday iyadoo waxa weeyaan COVID-19 uu nahelay oo waxa weeyaan dalkan diyaaradihiisa joogsadeen oo xoolihiisa joogsadeen oo xaj sanadka ay naan tagin iyada arkaysa inaanu mushaharkii shaqaalaha bixinay isla mar ahaantaasina waxa weeyaan shilinkii Soomaaliland aanu mar kale hata halkiisa ka dhaqaaqin waa siyaasad cad ee marxab iskaga yimaadin
soo hadamaad garan dhaqaalaha taasaanu ka qabanay waana ta ugu weynaa maanta qaranka Soomaaliland uu ku faanayo jiritaanka qarannimadun lama ilaaliye inaad qaranka Soomaaliland lacagtiisa ilaalisaan halgan gaara iyo waxay kaaga baahan tahay siyaasad gaara tan xukuumaddu way ku guuleysatay waana ta maanta shacbiga reer Soomaaliland ay ku majiirtaan xukuumadda maanta joogta biixi iyo golihiisa wasaaradda wata ay ku majiirtaan dhaqaalaha halkaas aanu gaarsiinay markhaatina uu ka yahay isaga iyo xisbigiisuba kaadi kaabayaasha kale dhaqaalaha maalin dhaweyta wuxuu sheegay in waxa weeye 3 mashruuc xukuumaddan ku guuleysatay oo ka mid tahay bridge-ka Camuudeed uu ka mid yahay bangiga Oodweyne laga dhisay uu ka mid yahay barnaamijka shaqo qaran hadduu fahansan yahay qiimaha ay waxa weeye dalka u soo kordhisay saddexdaa oo arrimood u sheegay maxaa Oodweyne meena Soomaaliland ahay hogaamiyahooga yidhi madaxweynuhu berri toole wuxuu seexanayaa Oodweyne oo maalin ka hor sheegay isaga yidhi Oodweyne baan loo qodobada ku soo qodobada ku soo dhaw ka jawaab waa dhaqaalaha maxaad ka qabatay aniga eegina dhaqaalaha waxaad ka qabatay lagu sheeg waxa weeyaan مليون دولار ku baxay madaxweyne biixi maalintii dhaweyto waxa xariga ka soo jaray qiimaha maanta uu gobolka awdal iyo degmada boorama u kordhiyay waxa marqaati ka amaanta dadka reer Soomaaliland ee awdal ku nool iyo degmada boorama tusaale fudud hadaan ku siiyo jaamacadda Camuudo jaamacadda ugu fac weyna waxa weeyaan jaamacadaha dalka jaamacadii qarankana ayaa waxa bridge-kaasi uu kala gooyay iyada iyo ardaydii iyo shacbigii deedna ay noqotay in kambas iyo suuqa dhexdooda ay jaamacaddu ka kiraysato isagoo madaxweynuhu og muddaxileedkiisii ugu horeeyay iyo qalin jabintii ugu horeysay ee uu ka qayb galay isagoo madaxweynaha ayuu yiri maanta haddii alla soo gaarsiiyaan oo madaxweynaha halkii shalay markaan dugsiga Camuudeed ku jirnay boorama waqtiga ku nimanina dhaqaalaha maxaad ka qabatay sheeg war miisaaniyadda oo kaalay in maanta aanu madaxweynaha dhammaan buundada boorama laga dhisay war buundada boorama war miisaaniyadda sheeg war miisaaniyadda sheeg hada miisaaniyadda sheeg war miisaaniyadda sheeg war dhaqaalaha laga hadlayaa buunda boorama aad ka dhistay ku leeyahay ka sheegin war iska daayo war birish aniga buundada sheegin hada waxa kala miisaaniyadda sheeg إيكاد بريجكا بورا ما لقى دسي قيمات ماي إسلاما قبنو ماي وحنا نسكولا قبنين وانو دسناي لكن هو وقفدي وهرا لو شيء هو وقفدي ما الشعب الصومالي لكن ما كواحد عند الدراسة يجي كذا شخصيتي كذا خذوا بضاعة وعكو شو الشيء يا برنامج كمان تشقق قرن واحد وقتها ما الصومال لان مركز الله يراضي إن هيدا شقالها iyo wasaaradda shaqagelinta in qof la shaqaaleysiiyay markay noqoto dhibta loo mari jiray waad garanaysaa siyaasad cad intuu madaxweynuhu keenay barnaamij rajadii dadkana abuuraya isla mar ahaantaasina qarannimada iyo muwaadinimada iyo inuu qofku waxa weeye soo tababarto madaxweynuhu isagoo siyaasadda ka duulay ayuu barnaamij shaqo qaran la yiraahdo sameeyay thaniyan maxaa ku xiga waxa ku xiga inuu qofku isku kalsoonaado oo qalinkiisa uu wax ku helo maanta waxay barnaamijka shaqo qaran wax laga soo helayaa intaasoo family oo isku qoysa oo qalinkooga wax ku helay maxaa ka weyn inaad ummadda qalinka adaysa cadaalad ugu samayso oo qalinkaaga waxbaad soo baratay ku ciil baxa tiraado waxa ka weyn ee maanta la qiimeyn lahaa muxuu yahay marka waa qodob aan ku guuleysanay qodob aan ku guuleysanay oo waliba qarankan u aaya taariikhdeedana uu iska leeyahay madaxweyne barkad ku soo dhawo maxaad ka qabtaa qodobada dhaqaalaha iyo shaqo qaran horta waxaad weydiisay dhaqaalaha dhaqaaluhu kaabayaal buu leeyahay waxay ahayd bahalka la yiraahdo barnaamijkoodii ay sheegeen miiskan waxaan u keenno oo kula xisaabtamayna anaga mas'uuliyad baa shacabka naga saaran shacabku access iyagu ma helayaan in la xisaabtamaan laakiin anaga mas'uuliyadoodu voice of the voiceless baan codka dadka anaga matala kaabayaasha dhaqaalaha jidadka kowka jidadka ayaa kowka infrastructure baa la yiraahdaa mana isagu garanay qodobeynu ku soo dhawaanaysan doodii nooga ballaan لما بتكتب وضع محل السماء وضعك تقولي هذا ما يستوى ومثالية أنا كنا كنت جا doodii su'aalka tahay horta dhageyso si fiican baan xusn istimaac uu qayb ka yahay doodaynu inay aflaxdo kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka kooka bartan waxa ku qoran xukuumadda kulmiye marka dhalato waxaanu dhisanaa wadada isku xidha boorama wadada isku xidha Oodweyne iyo Baro waa qodob waatan kama been sheegay waxaanu dhamaystiri doonaa waxaanu dhisi doonaa wadada Beligubadle ilaa Hargeysa waatan ilagow waxaanu dhisi doonaa wadada Salaxle ilaa Hargeysa waatan wadada Dowgacad bartaa ka baxdaan dhisi doonaa waxaanu dhisi doonaa beenan wadada Arabsiyo ilaa Allah baday waa waxay qoreen oo aanan anigu ka been sheegin oo buugooga xisbiga waa tasoo kan wana waa qodobka labaad
waxay idhahdeen kaabayaasha dhaqaalaha waxaa ka qayba garoomada waxay idhahdeen waxaan dhisi doonaa garoonka aanu dhammaystiri doonaa magaalada boorama waa kan airportka boorama aanu dhammaystiri doonaa waa yahay waxaanu dhisi doonaa garoonka magaalada burco waa kan ku qorana diyuuradaha waxaan dhisi doonaa garoonka magaalada ceeri gaabo ee diyuuradaha waa kan ku qoran waa su-aal hortaala waxaan kaga waxaysanayo dekadaha waa kaabayaasha dhaqaalaha waxaanu dhisi doonaa dekada saylac baan dekadeeda dhisi doonaa bay idhahdeen waxa ku qoran waxaanu dhisi doonaa dekada maxay ahayd xiis dekada maydh waa tan ku qoran waxaanu dhisi doonaa oonu samayn doonaa dekad lughayo yeelato bartan bay ku qoranta waa kaabayaashii dhaqaalaha waa intaasiba waa intaa iska daa inay dekada dhisaan iska daa wadood miiska taalla iska daa inay dekada dhisaan inay wadooyin dhisaan ma oran karayo ood weyne wadadeeda dhisay ma oran karayo bilgubadla wada ka dhisay ma oran karayo alla badan waay ina dekad wata laga soo dekad da factis figures baan ku buuri wax shakhsi leeyahay wax shakhsi qodobada oo baysu waarina dhegeyso berbera kaari dhowr oo wadada inta hargeysa ka baxday berbera gashay fanayo xukuumaddu leedahay kumay bixin waa mashruuc madaxweyne ziilaayo markii hore kale waan ogahay waqtigeedu yimid waan ogahay war isla kulmiye ka dhalatay wadada meesha bay kama dhalaan waa Ahmed Siraayo laga siiyay waa noo ogolahay wadada berbera kaari dhowr 3 sano ka hor bay bilaabay 3 sano kadib madaxweyne dhan oo qaran inta ka xeynba 13 kilomitir ilaa maqaska agaasiba waxaydada wasaaradda arrimaha gaadiidka ka jar waa disgusting waa yaqiiqsi in haybada madaxweynaha sharaftiisa la ilaaliyo waa wax qabad laantii tiiha ku jira wadoona dhisan waxna may qaban iyo xariga ka soo jarayaan isma qabatee kaabayaasha dhaqaalaha barnaamijka shaqo qaran uu ka hadlay oo ku noqon doonaa kaabayaasha dhaqaalaha galaya wali aan ku gabagabeynaa beeraha 3 sanadood gurigaaga cuntada lagu kariyo haday basal tahay haday tahay xabuub haday tamaandho tahay intaba Itoobiya laga keenaa hal dalagoo dawladdu ay samaysay oo maanta koronahaasi hadduu dunida kala xidho isku filnaansho ummadeed lagu gaari karayo oo beera ah oo la taaban karayo suuqa lagu iibinayo xukuumaddu ay soo saartay ama ay ku dhiirigelisay ima sheegi inta markaa kaga baxo ta shaqo qaran marka horeba wasaarad kasta waxa joogay xafiiska aad gashay institutionka aad gashaba 5 ama 6 ama 7 xafiis fadhiya barnaamijka shaqo qaran istiraatiijiyadiisu maxay ahayd 3 milyan baa sanad kasta ku baxa inamada dhibooyada la geliyay ee la soo saaray ee magaalada la yiri hay'ad kastaba iyadoo 7 qof xafiiskii ay joogeen la yiri kuna ku darsada maxaa maaskii shariicada lagu darnay maada ku daray waa diyaar u xoogiye institution ku shaqeynaya qofku imika adigu wilig baa tahay institution baad maamulaysaa waad garan karaysaa human resource ka u baahan tahay human resource ka public institution isku baahan yihiin ma hayn la kabla isku warnaga miisaaniyadu haynaa warshadaynta la abuuro in muruqa iyo maskaxda dalkani leeyahay la galiyo inta ciyaalka direes loo xiro in sidii object la ciyaarsiyo si aad barameehay oo ka bax beeraha waxay aad ka qabateen sheeg wadooyinka sheeg waxa dhanba sheeg tan ku soo noqo waxa la yiraahdaa akhlaaqdu waxay biqishaa sida nabaadku biqlo an al umma ma baqiyat akhlaquhum fa in dhahabat akhlaquhum dhahab warta akhlaaq aad bad af Soomaali xunta adiga yaa ka akhlaaq xun damiirkaaga war gobol ilbaxnimo leh oo aqoon leh oo xadaarad leh oo sharaf leh ka soo jeeda war yaa ka akhlaaq xun war yaa ka akhlaaq maada principle war maada akhlaaq adiga sheegay kare ama qaad baa tahay war laga wada hadlaya aniga akhlaaq inuu sheegay laga wada hadlaya wax qabad iyo masiir umadeed baynu ku wada hadlin shay shakhsi la yiraahdo halkan idinku maan keenin labadiinina seegtaan idinku maan yeelin qodobada aynu ka wada hadalno wadada wuxuu ka hadlay arabsiga iyo gabiley buu ka hadlay wuxuu ka hadlay wadada dekadaha awdal iyo madaarada iyo wuxuu ka hadlay maxaa ku dhahay waxaad ka qabato inuu badoo sheeg waa inta anigu way gadhan wadadii ceeri gaabo dhamaad bay ku dhowdahay 20 kilomitir baa noo dhiman waa qodob 284 kilomitir noo xigtay wadada la yiraahdo burco iyo ceer gaabana shalay oynu joogno waa warbaahintii rag kamida iyo wasiirkii jidadkuna joogan 148 kilomitir bay dhamaatay hatagana soo arkaan wadada gabiley arabsiyo 2 sano ka hor bay dhamaatay
subaxaan boorama ka soo tooso in toddobada ka soo baxa boorama dib ilaa arabsiga kuma taala arabsiyaal la badan ku taala waa waxaan u dhamaadaan anu ku sheegay arabsiyaal la badan ku sheegay ku aad buuga ku qoran way dhamaad buuga waxa ku qoran boorama markaan ka soo baxo halkan aan ka qurxda haddaan boorama waxa weeye ka soo qurxdana saacad baan halkan ku imaadaa way dhamaatay taasina waxaanu bixinay wadada Looyacado iyo boorama isku xidha wadada Looyacado iyo boorama isku xidha waxaanu bixinay sirfeenkeygii hadda oo shirkad la yiraahdo Saba Engineering oo dalka Itoobiya laga leeyahay ayaa ku guuleysatay waa saddex sano kadib waa boorama horta wax kasta wuxuu qaataa waqti wadooyinkan la sameeynayaana carratuulkan maaha waxa lagu shushubaya wadooyin caalamiya oo mustaqbalka dalkan leeyahay aanu dhisayna marka cilmidiisa sanada 12 bilood baydina qabadu doonaya marka taabsiiyeen wuxuu ku leeyahay 3 sano kadib maxaa doonaysa 3 sano kadib mayna halkan fadhiya doonaysa ma maxad qabatay war waan ku dhameystirayaa wadada silaa wadada bixiyaan ku leeyahay maxad bixisay maxad kontraaggeegi baa bixiyay waxaa la dhisayaa horta waxaa la dhisayaa mayna wadadii aawo soo kala sanadka koowaad markuu sanadka koowaad hada ma dhageyso barqada dhamaysto wada buuni wada Looyacado ilaa boorama bixinay Saba Engineering hay'ad ayaa ku guuleysatay way caddahay waananu bixinay kontraaggeegi biriijyadii halkii marayeen wadada qaabkeegii sirfeenkeegii oo dhan ba ayaa la qaaday marka wadada dhismiha bilaabay wadadaasi hawsheedu way naga dhantay intii wadooyinka halkaas kaga baxaya wax soo saarka dalku ka hadlay beeruhu ka hadlay Somaliland xukuumadda Muuse Biixi intay joogto waa markii u horeysay ee kayd raashin oo isku filan dalka kan yeesho oo kayd raashin aan leeyahay waxaan ku yaala COVID-19 kilo wax weeye lagaga baxay waxaan ku yaala dalku ku yaala hadana tagayinba oo calaamadahu ka aadasho dama waxaan ku yaala daba loo sheego ma dooqo mashquul haatu burhanakum in kuntum min as-sadiqin hay'aduhu waa kuwee xisbi mucaarada xisbi mucaarada wararka dhageyso Faysal Ali Sheekhuti Faysal Ali Sheekhuti Soomaaliya hay'adda masiibooyinka Soomaaliya حزب معارضة تهود ذلك وحوي حزب قرابات كته فيصل عن شيخ أبو وزير بابا بسمة العلماء مقعودنا حزب عارضة ياته فين هالشيء اللي أربط ما وحلا لهاي كيد كراشيك هدارد ماشي كويا لا تجين وانا دتك أورنين ده ما يشاك بل ماشي كويا لا كيد كراشيك أقول كويا حفيز بولايه ده حفيز بولايه مو كويا الحفيز والله حفيز كاس قبطايو هيا قلب كوجي سواكا إنه ليه حفيز كم كان دردار ما ينسينا ين له سهاجي وحاسو مدام عمر ما يامو طيب وحكى له شخصية مسكين فيصل علي الشيخ مسكين بس وكلف هيئة وحو قرن في الصومال لأنه قيبسين يهي هيئة أبابو كساركا يمسيقويك يوحي دقيقي حفيز بيه وزارة دبيره هو حسوسار كيغا مركي سو سارتو مدحوينها iyo qaranku ka gudoomo hay'adda kaydisha weey waana markii u horeysay Soomaaliland kayd raashin yeelato oo isku filan dalkan isku filaashay gaadhay saddexdaas sano gudhawaadkii xukuumadda madaxweyne Biixi joogto xisbiyada mucaaradka waxa loo aasaasay oo u taagan yihiin inay noqdaan iska xisbi mucaarad wax qabadka ka fiyaan xukuumadda maxaa kamid ah wuxuu u baahan yahay intuu tagay inuu yiraahdo wadadan waxaas ka qaban waayeen beeraha waxaas ka qaban waayeen waaniga dul taagan $15,000 bil walba qaataan arday agoona jaamacad ma ka bixiya taasi ma dhago mas'uuliyad loo doorto qofka mas'uuliyadda ku fashilmaan ma charity organization ma waa ka soo baxay ta kosob kama haysta siyaasadda ama charity organization ma waa ka shaqeeya xisbi qaran baa siyaasadda adiga umada ka cabanaya waxa kamid ah daadada umada ka qaranto dasodiga wala iyo dadkan caayiya madaxda wala dasodiga waxba sheegi karo maxaa la caaya baas shahaadad ku sidata madaxda caaya maxay tahay madaxda qaranka oo ayaa madaxda qaranka madaxda qaranku waa yada shay soo bar maxaa ka barta adaba xamarkeeni صديق هذا حمر لقيني يا هذا حمر لقيني يا والله استثمار كتير يا الله ما داير يا رب ولا داير يا رب هذا المديرة هذا الأفلقات وهذا المطار هذا المديرة قلب كنكون كان اسكو قبلنا كشيكين قلب كنكون هذا وادي حسن شاف والله وحدين لا جوجت خايم الوطن هذا حسبينا روح ku gabu maraysan waan garanaa shaqa qaran arintu ka hadlay wuxuu yahay barkhad la banu dhalan oo dhisnay wuxuu yiri qodobkii lama qabno maskaxna kama naadi muuri aniga soo weydiinay arinta shaqa qaran
uu idinku eedeeyey wuxuu idinku eedeeyey barkado uu leeyahay qorshihii loo sameeyey bay dowladdu garab maraysaa waana qorshihii dhalinyarada loogu talagalay baahidii wixii oo dhan bay garab maraysaa in wax kale loo abuurahay maxaad ka aaminsantay shaqo qaran shaqadaasi iyo eedaasi maxaad ka walaal waxa jawaabtay weeye ku raali gelin mayno inaan waxa weeye maalin kasta intuu ummadda soo hor istaago been cad u sheegay waa shaqo qaran ku soo boqo waa shaqo qaran ku soo boqo shaqo qaran waa barnaamij qaranka Soomaaliland leeyahay waana siyaasad madaxweynaha maanta joogay xukuumaddiisa ka dhalatay kulmiye ay hirgelisay waana waxa weeye dalkana uu mahadiyey laalaabadna male shacbiga reer Soomaaliland maanta waxa weeye arintaasi waxay og yihiin in qaranka Soomaaliland markii uu hore waxana siyaasadan ku timid madaxweyne Biixi oo hogaamiye soo ah oo dalkan soo halgamay oo dawladda soo arkay oo u jeexnayd wadada uu dalkan ku hagayay barnaamijka shaqo qaran iyo qiimihiisu uu u cad yahay ayaa lagu hirgeliyay waxa kale oo waxa weeye halkaas ka soo dhaxbaxday dhalinyarteennii maanta aad arkaysa dalkan inuu ictiraafaysaday oo dawladda maanta ina taageeraya aanay jirin oo isku tashanna inagu oo ognahay maanta waxa waxbarashadeena iyo giddi aynu ku maamulnay cashuurta yar aynu dadka ka qaadayna ay tahay inuu yaa intaa wixii ka dambeeyay ardayga jaamacad wax ka soo baxay ee qalinkiisa halka ku soo gaaray inuu baryootamo uu oday iyo suldaan iyo hebel oo ka xidhaado qalinkiisa waxa ku helay barnaamijkaas aan u abuuraya wuna hirgalay maantana Soomaaliland waxa way anigu iska daacid kale family anigu maanta ka soo jeediyo bulshada ka soo jeeda shakhsiyan Cabdinaasir Hadaan waxaan ogahay 5 sano ee maanta xukuumaddaasi jirta inaanaan qofna naga shaqo tagi kareen hadduna barnaamijka shaqo qaran jirin waa sabab cadee sabab waxa weeye imtixaan qofku wax ku helaya وسيدنا سيدنا موادين هاي دلك ولا شو حق بيان لاين سيدنا دوغ شقتي كره ما نقول تاع ورقبلك سو قلن ما ورقبلك ورقبلك امتحان صح لو ما قال ورقبلك ورقبلك aqoon iyo waxaan ka ورقبلك هذيك على موادين بليه صدق على موادين هذيك بقى سيدنا موادين بليه mushkiladaha wadanka yaala waxay taad maalin walba ka hadasha ay kala badan yihiin resources-keena dalkeena iyo waxaynu haysanay waxayna soo galayna kala badan ardayda maalin walba inoo soo qalin jabinaysa inta yarayna dhax taala hadaynan cadaalad ka sameeyay dawladdu maxay waxaan marka cadaalad darro saaray baa leeyahay isagiiba Suuriyan kuuri musuq maasuqoo dhan cadaaladna uu sameeyay barnaamijka shaqo qaranna wuxuu noqday barnaamij qaranka Soomaaliland mahadiyo taariikhda madaxweyne Biixi baa ku gali doona waana barnaamij waxa weeye rasmi oo qaranka Soomaaliland maanta u ay doon iyagoo gambari toona talada dalka u warday hadday yimaadaan waxa weeye waa barnaamij yaalo مصباص سؤال كودي أنا أنت مهم كيف كسر دوارنا وحيتين نلاشى بلشدة Somaliland جود هان محا إسكبد لي سدح ثلاث سنة شرتي حكومة مدحونا بيحي محا اتجاه نلاشى بلشدة يستا محوية دقالها عافيمات كقضب كسالة قاعدة تذكر محا وكردي تذكر محا ويركلي قضب كاس الدنيا بركة كسر دوي طبعا سنت محمد يعني dowladnimadu wayna damaanad qaadaan nolosha dadkeeda wayna ka qabtirtaa biyaha wayna ka qabtirtaa caafimaadka wayna ka qabtirtaa wadooyinka wayna ka qabtirtaa tacliinta ummadda marka bilariska laga dhiso ay nation dalalka kale la tartami karayaan noqon karayaan maxaa sawlay iska daa Somaliland ta kale caasimadda waxa ku nool 1.5 million isku wada dar saddexdan imika madaxweyne Muuse Biixi talada dalka iyo xukuumaddiisa xisbiga 7 balaas siilaayowgeed 10 ka sanadood caasimadda qaranka ee lagu soo hiranayo waxa biyaha siiyo booyado iyo biyoolayaal oo barxad la ka keena lagumana beenin karay waxa leerka siiya shirkado private leerkii dawladdii ay lahayd warshadii leerka dawladii hore ay ka dhaxashay Somaliland gaar ahaan Hargeysa ku yaal dad barefada lagu wareejiyo lisi oo qaatay dawladdu dad ma utilities ka noocaas ma bixiso waa nolosha caadiga ah oo ka hadlayna marka nolol caadi ka hadlayna waxbarashada jaamacado dawliya oo dadka kafeeya oo waxbarashadooda iyo tacliintooda verified tahay oo academically la dhisay oo campus ahaan dhisan ma hayna Ethiopian 30 sano kadib ciyaalkeena ugu dawarsi waxbarasho tagayta gaar ahaan shaqaalaha dawladda marka ka hadlayno iska da base-ka hoose boqolkiiba 55 ayaan waxbarashada fursad u helin dadka dayarta Soomaaliya iskuuladeena bilaash baan ku dhigay lacag kaasha iskuulada laga qaadaa ونولش أساسية مركان كان تعافمات مركان كسر دوان عافمات بي وعافمات كمان كسر دوان عافمات كا وحن أبهنين
in degmo kaste oo caasimadda ku taala in tuulo kaste waa in dhowtolo kiis baan ka sheekeeyey indhahaygaan ku arkay qodobadaada kusoo oo caafimaadka ah hooyo umul aroortay baa gaari lasoo saaray waa mas-uuliyadahan doonaya inay dowladdu darantay aan leeyahay madaxweyne iyo xukuumaddaada maxay tahay wax kaga qabo cusbitaal aan joogay baa la keenay islaantaasi tuulo magaalada koornaheeda ka timid jaamacadda baan kaga hadlay iyadoo umul aroortay ilmihii ku baktiyey gaari caanilay bahalka la yidhahdo qadarka xukuumaddu ma maamusho qadarikaadide gaari ay xoolo saaran yihiin lagu keenay ilmihiina ka baktiyey iyadiina ay dhiig aroortay wixii qadar anagu ma maamulle cashuurtay qaadaan waxay ahayd hooyadaas in xanaano loogu sameeyo marka nolosha guud ahaan somaliland marka laga hadlayo haddaba nolosha guud ahaan marka somaliland laga hadlayo taasi waa bayskoodii nololeyd maxaa iska bedelay maxaa iska bedelay dadku mayna dowladi dhalato laba kursi laba madaxweyne ay ku kala tageen xukuumad horena baxday xukuumad dambana timid ma waxaan inta ahayn ma waxaan horta inta ahayn mise baahiyaha adeega asaasiga bulshada u ah inta aan soo sheegay in ka badan baa camal la-aantu dalku waa 5% inamada graduate gareeya jaamacaduhu intijaah ma haystaan maqaaxiyaha wada fadhiya shaqo qaran bay haystaan wax allaaliyo wax lagu jeeyo wada caayaysa maalin walba wax allaaliyo wax lagu jeeyana ma jirto wana waxa macaaye af hagaajiso dadka rajo beenin dadka rajo beenin war af Soomaaliga war dadka rajo beenin war af Soomaaliga war dadka rajo beenin weyn baa tahay ma dadka rajo beenin qul haatu burhanakum in kuntum min as-sadiqin war quraanka iska daa war runta quraanka daa adigu war runta ilaahay dad buu kula hadlayay adiga kugula hadlayay iska daa war dadka kan bini aadamku ka mid yahay war dadka kan war dadka kan doodaada miska shaqa la'aantu 100% rajabeelka dalka ka taaganay iyo maamul xumada ina haysata maanta maalin ay ka rajo xun yihiin dhalinyaradeenna wax baratay ma jirto maxamed shaqa la'aanta adabada kala qaatay marka nolosha guud ahaan markay ay rajay xukuumadda abuurtaa hal warshad may samaynin beero may samaynin biyo may samaynin wadooyin may samaynin maxaa bal xukuumaddu ay cashuur bay qaataan qodobadan ka hadlayno marka waaqiciga saxdaa laga hadlo qodobo dowladdu taabatay oo aynu tilmaami karno waxaa ka mid a buugaagta dowladdu lacagta ay ka bixiso dhalinyarada iskuullada waxbarashada ee iyadu dib u iibisay dowladdii ay ku kabtay sanduuqii dhalinyarada jira qodobada marka laga hadlayo iskuulkan dowladda ee tababarka macallimiinta dib macallimiinta loo tababarayo ayaa qaybahaasa ka mid a biyahoo kale dibugelintan dhaqaalaha badan lagu bixiyay laakiin aan biyo weli dhammaystirmin baa ka mid a qodobadaasi ka macaarad ahaan ma ogtihiinoo ma aragteenoo ma eegteenoo inay sax yihiin iyo inay bulshada wax u kordhinayaan inay soo noqon karaan iyo inay wax u tarayaan ma eegteen qodobada ma yihiin qodobo sax oo dowladdu qabato maaha waana sababeynay anugu waxaygu sabab bay leeyihin waxayna leeyihin dood cilmi iyo caqli ku dhisan dowladdu madbacad qaran bay leedahay manhajka dowliga waxbarashada inay suuqa ka iibisa maayo horta waa inay madbacadeeda qaranku samaysaa manhajka dowladdu ay wadadka wuxuu ku dhigaysana waa inay iyadu siyaasadeeda yeelataa imaha in dalka laga soo waari dad baa manhajka soo daabaca dalka ku dhex yihiin not maaha wax public waafaqsan wasaaradda waxbarashada soo gaadhay waay taasi waa taa tan biyaha noloshu way biyo ka bilaabmataa markaan hogaamiye ahay waa in aan si akaademiga u fikiraa waa inaan baahida bulshadeeda ku xisaabtamaa waa inaan hilaadin karayaa maxaa nolosha bulshada badbaadinaya biyihii baa ka koowa 3 sano kadib isagoo lahaa magaalada biyogelin baan ka samaynaya madaxweynihii iyo xukuumaddiisa iyo barnaamijkoodiiba kan yahay in haddana booyadii iyo biyoleynoo dhaamiyaano kiisa shilalka ugu badani barta ka dhacaan maxamed oo miyaa taqaanaa waxay ka dhacaan aw barkhadle iyo hargeysa dhexdooda intaasoo muwaadin ay ku nafaan oo booyada isku dhacaan waana mas-uuliyad darada xukuumadda oo biyahayna samaysaa taasina waa qodob tababarka macallimiinta 6 gobolba in laga sameeyo bay ahayd statistics qiyaaska lagama qaadanaya caasimadda iyo 4 qof ay joogaan wayn boorama xarunta tababarka macallimiinta laga sameeyahay say ku galeen ballanka ceerigaabana ku taalabahay laascaanoodina ku taalabahay maxaa hatay adeega dowliga la furayo maahe waa siyaasad qaran waxaad ka hadlaysaa waana in la xakameeyo siyaasadda waxbarashada oo gacanta lagu hayo marka qodobadaas aad leedahay sidaa ay tahay waxaa laga qabtay uma arkaynay sax tahay way uuni aan ku soo dhawaana xukuumadda madaxweyne biixi dadku waxay ka filayeen isbedel ka ballaaran inta imika muuqata sida mucaaradka iyo bulshada taageertaaba ay qabaan
maadaama muwaadin wadanka intaasoo sanadood deganaa oon dibad u bixin uu ahaa ma aaminsan tahay in filashadii dadku wax ka yar ay xukuumaddu qabatay oo aanay qaban halkii ay dadku gaadhsiisanayeen 3 sanadood? horta waxaan kuu sheegayaa marka rabitaan shacab uu yimaad ee madaxweyne iyo xukuumad la doorto waxay dadku ka filayaan marka horeba wixii ay ku aaminaan ay ku doorteen. xukuumadda maanta joogta madaxweyne biixi hogaaminaya xisbiga afkiisa aan ku hadlaya ka dhalatayna waxay maanta intaa u barqad sheegay haddaan tusaale ahaan kuu soo qaato arrimaha biyuhu ka hadlay maanta waxaan kuu sheegayaa biyihii caasimadda ee 30 sano ku dhowaad loo taag waayey ee waxa weeye kolba mashruuceega maanta waxa weeyaan xisbiyada qaarkood ay joogaan kuwii lunsaday in maanta ay mar 60% ay dhamaato beebis dhigistuna ay hadho xafiiska imika aynu warka ku qabanayno ama doodaynu ku qabanayno hortiis cagafyadii baa daadsan maanta magaalada Hargeysa sekadaad uga baxdaba waa taa beebabkii la jeexayo way dhamaatay dhammaan dadweyne ku dhowdahay wadooyin iyo waxba ku soo celcelinaya dhammaan wadooyinkii dalka oo dhan xukuumadda inay ku guuleysatay waana dhamaystirtay waana wax cad oo maanta warbaahintii dalku ay soo tabinayaan oo maanta wadadii ceergaabood arkaysa boorama waa adiga arkay laga soo shaqo tagay caasimadii Hargeysa waa adiga arkay goboladii dalka oo dhan waa adiga arkay wax kasta waxa weeyaan anagu 85% xukuumaddani 3 sano anagu inaanu gaadhnaanu aaminsanahay filashadaad sheegaysaan ku sheegaya siyaasadda markay noqoto dalka siyaasad baa lagu hogaaminaya madaxweyne biixi wuxuu la kowsaday sixir barar dhaqaalihii dalkan oo waxa koobaad marka qarannimada laga yimaado in la difaaco in la ilaaliyo in loo halgamo oo baaxadaga yimid wuxuu yimiday iyada oo dalka ay ka jiraan khilaafiyo uu barkhad xisbiga uu afkiisa ku hadlayay uu dadka ku kala qaybiyay oo maalin walba waxay dhaqaale ka galay oo jabhada abuureen adiga cadeen halkeenu jabhada ku sameynaa adaa qirtee qodobadaana laga hayaa wuu ka jawaabi doonaa siyaasad cad baanu ka yeelanay ummaddiina waanu midaynay waxay sameeyeen oo dhan waanu suulinay doorashooyinkii bay noqotay doorashooyinkii dalkani kaga bixi lahaa inay ummaddiisu kala foofto oo dadku xaqa dastuuriga u leeyihiin inay codeeyaan waxna doortaan lana doortana iyagaa hortaagnaa ilaahay uu ku ciqaabo komishankii ay diidanaayeen ayay khubara u aqoonsadeen inay guddi doorasho yihiin waxaan kuu sheegayaa dalkan waxa ugu weyn ee maanta biixi iyo xukuumaddiisa wadani iyo qayrkii iyo dadka suuqa ka hadlaaba ku haystaani waa suulinta iyo la dagaalanka musuq maasuqa iyo afmisharadii suuqa lagu baadi jiray xididadaan u saarnay qodobka uu ka mid yahay waa qodobadaynu haru ka mid yahay mudane cabdinaasir afayeenka xisbiga kulmiyaati miyaad aaminsantahay musuq maasuqu inuu Somaliland ka suulay oo aanu musuq maasuq jirin oo xukuumadda biixi suulisay maadaama aanaynu arag saraakiil madax wasiiro gudoomiyayaal agaasimayaal dhibaato musuq maasuq intay geysteen xabsiga la dhigay ama lagu eedeeyay ama la yiri musuq maasuqaasi geysteen ma waxa leedahay xukuumaddu dhamaanteed waa ka nadiif musuq maasuq mas'uul u sareeya ilaa ka hooseeya ma taasad aaminsanta musuq maasuq inuu suulay waa si wanaagsan xisbiyaha waxaanu aaminsanahay qof la xiro iyo qof la eedeeyo inay misqaala darri tahay laakiin arinta ugu weyn ay tahay musuq maasuqu muxuu ku suulaa siyaasad cad ood kula dagaalanto inaad musuqa siyaasad ka yeelato aad kula dagaalamayso siyaasad baanu kula dagaalanay miisaaniyadii leh oo dhaqaalihii wadanka wixii ka baxayay leh oo wixii soo galayay leh oo mucaawimooyinkii leh ayaa xal ka sugaya xukuumad shanaad oo iman doonta xal ka sugaysa marka xukuumad shanaad oo iman doonta xal ka sugaysa xal kama sugayo inuu raaxaysan doono hada ma rosba waxa way kuwa adigu waxa ku raaxaysan doona dalkan inuu u fikiro xil umadeed baa lagu raaxaysan oo kuwa adigu aad xil umadeed baa lagu raaxaysan wuxuu ku raaxaysan loogu raaxaysan siyaasad qurux badan oo dalka lagu hogaamiyo wararta dhageysada afkiisu aan soo koobo leadership kuma raaxaysta cidda ka soo baxay leadership kuma siyaasad lagu suuliyo musuq maasuqa ayay dawladda biixi dhigtay buu yiri afayeenka xisbiga kulmiye maxaad ka aaminsantahay horta meesha la yidhaahdo arrinta musuq maasuqa wuxuu yidhi siyaasad baanu ka dejin national policyga
marka public administration ka la dhiganayo anu master public administration horta dhigayso national policy marka la sameeyo waxa uu ka horta dhigayso waxaan doonaya isaga doonaya su'aasha inuu weydiiyo Cabdi Naasir iigtikaadii liga waa taa ka jawaabayo soo siyaasad qaran moodo national policy xeerku laba bukuun kama midna waa mid baarlamaanku sameeyo marka sharciga laga hadlayo midna waa siyaasad xukuumadda ka timaado marka dambe la legitimiate gareeyo xeer noqdo policy number baa jira bal haynoo sheego siyaasadda qarankee uu leeyahay waxaanu ka sameynay la dagaalanka musuqmaasuqa nambarkeedii xilliga la sameeyay ya war miiska fadhido ma dawshay war ma dawshay layna tarrafu gayagiba tilataay ma siyaasadda shabakada TV maya sida ay tantan noogu kaalay war barata shaqo walba ay tantaay intan ayda waqti ku bixiso xafiisyada dawladda waqti ku bixi ha uu ku daayay hadalkaaga hadalkiisa uu ku daayay hadalku u daa way soo kob marka musuq la dagaalamo waxa leedahay xeer ay dawladdu ku sameysay musuq la dagaalamo ma jiraan waa doorada ku jirta dawladda xisbiga ku sameysay oo sheego waa tan oo sheego qodobka labaad xukuumad baa dilaysatay wixii hogaaminaya qodobka labaad intaas u guuri laayay qodobka labaad qodobka labaad horta siyaasadda muguniino mu sheegin waxa dal tiraalamiska uu ka kacay qodobka labaad ميد بالري محاود دنبيو وكالة سيستو نين باينتو بابليغا سو هور فديستay xisbigooda ka tirsan yiri baloodadii danta guud baan iibinayo iyadoona cidnaanu kala tashano procedure sharciyan marino ayaan intan soo iibinaaniyo hebel ayaanu maxaa hayta 100,000 siinayo hebel baan siin hadii rule of law ku shaqeynayo oo musuqmaasuq ay la dagaalamaya wax doonaya marka adu sharciga dalku shaqeynaya waa laba shakhsi horta dhageyso adu sharcigu shaqeynayo waxa ahayd waa kuwa musuqmaasuq la dagaalamaya bil waa faanaysan ku sheegay tabta faanku ku qurux badnaanay xisbiga xisbiga guushiisa soo ma sheegay ma laha waan suuriye soo ma laha meesha la yiraahdo sharciga markii weegan waxa ahayd in hanti dhowrku ninka galo حزب قرابات يبدو مليكا انت سوق كعيتان هو مسؤوليته كو تاله الا توغيس با كدعي حكومه هذه حزب مسؤول هذا كان انا بدل شيء انا كل جستني دوت هذه ما بري كريس دوت هذا سوق waxa hay sharciyan xirlaantuna ciqaab ku soo ogto dacwada kadibna maxkamadda la حزب قرابات codso maxkamadda runta waxa jeedo maxkamadda inta la keeno inta danta guud sharciga saddex xubin qaba waa masjid waa xanaano waa dugsi waa garoomo in la weydiiyo awoodda intaad ku iibisay suuq madow dantii guud ummadda wax laga dhisi lahaa qof aad ku siisay jeelka in la dhigo waa mas'uul xafiiskiisa waa qodob wuxuu sheegay responsibility-ga ama mas'uuliyadda maamul ee dalku xisbiga kulmiye soo xukuumadda ma saarto wuxuu garanayaa imika inoo sheegay rag xoolihii ummadda dhacay goorma ku sheegay imika sheegay goorma ku sheegay imika sheegay iska daayay goorma ku sheegay wuxuu yiri ragii xoolaha ummadda dhacay xisbiyada ku dhumanaya haddaad garanaysa ragga xoolaha ummadda dhacay xisbiyada ku dhumanaya la xoolihii ummadda qaadeen mas'uuliyadii dowladda idinka saaranay maxaad u xiri weydeen dad musuqmaasuq la marka loo baahday maalinteeda gaaray afar jeer buu hanti dhowrku xidhay dowladda hoose Hargeysa dad baa musuqmaasuq loo qabtay kaboore ma qadaa photoshopkeeda aad xafiisyada ku dhajiso gadinamada kamarada sita istaba qaado annaga noo sheegay boore hadalka dhan anigu saxaafadda xurme saxaafadda ha ku gafi saxaafadda ha ku gafi saxaafadda ha ku gafi saxaafadda ha ku gafi saxaafadda sharaf barka saxaafadda soo dhawo tuugeysiga fursadaada waa ku siiyey fursadiisa hadda ku soo dhawo wuxuu leeyahay musuqmaasuq baa la soo where are they war xukuumadani waa xukuumadda afishaarada ka midka tahay qodobka musuqmaasuq ka baxnay anigu afar laatan jir baan
intaan la taliye madaxweyne noqday isaga anigu sidaada xisbiyada ma kala dab qaado karaamadeeda qofeed ma cuna principal iyo mabda baan madaxweyne biixo magacaaba ku riyoodaad ku tiri meesha inna lillahi ma baada wax jira habeen walba waa riyoodaad lix sanadood baan mucaarad ahay aan samray adiguna adigoo shalay tolo cid ka baxay ayaa samri kari weyday in adeerka shalay tolo adina muu misaad ku lahayd wuu fashilmay si lagu bedelo siyaasadaydan cabdiraa faysal xilka ka qaaday markuu warkaaga ka xor baan ahay taladii uu faysal ku siiyay qaado oo ahayd wadani ka xishoodo ku hadlin adigu buuni fadlan adigoo mahadsan mudan afayeen waxaan idinku codsanayaa maseerka dadka ee aad gacanta ku haysaan dadka ee bulshada Soomaaliland ee aad gacanta ku haysaan ee xisbiye qaran ku tihiin ee dadku idinku tixgeliyaan ee idinku raacaan mid ku hogaamisaan ayaynu miiska kaga wada hadlaynaa arrin shakhsi miiska ma taalo waxaan jecelahay inaynu ku soo noqono qodobadeena qodobada iyo yootanka meesha ayay ka saarayaan dooda aynu ku soo noqono mar walba wax shakhsi oo idin muuqdaan ay jirin laba xisbi qaran baad kala matalaysaan laba afayeen baad tihiin ummad baa idin daawanaysa ummadda aynu tixgelino qodobka muhiimka ku soo noqonaya waxa siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland 3 sanadood xukuumadda madaxweyne biixi ay jirtay maxaa la taaban karaa ayad leedahay waa laga qabtay maanta ummadda Soomaaliland aad u sheegi kartaa leedahay waxa sar ku guuleysay siyaasadda arrimaha dibadda oo ku qotanta dalkani inuu qarankiisu madax banaanaado adduunyada ka mid noqdo madax banaanadiisii 1960 lumiyay uu la soo noqday inuu xaqiijiyo xukuumadda madaxweyne biixi waxay ka qabatay inay siyaasadda cad u jeexdo oo hogaamineed oo kala dambeyn leh oo nidaam leh oo qarannimo ka muuqato taasna maanta de waxaad ogtahay adduunyadu inayna tiri dalka Soomaaliya waxay nagaga xidhan yihiin si dawlado caalamiina ay dhexdhexaadinayaan goobjoog ka yihiin arrintiina ku soo dhameystay waxaan xaqiijinay oo xukuumaddani ay xaqiijisay markastana ay diyaar u ahayd in marka wada hadalladaasi ay dab noqdaan ay nimankaasi xamar joogaay ay diyaar noqdaan ay miiska yimaadaan fagaare caalamiina ay yimaadaan duwal waaweyna una dhexdhexaadinayaan arrinteedu ay tahay arrin waxa weeyaan cadceedaasi aan sacabada lagu qarinaynin inaan waxa qadiyadeeda iyo fagaarahayaga ka sheegano madaxweyne waxa weeyaan waad ogtahay Ismaaciil Cumar Geelle inuu Djibouti ku martigeliyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka soo qayb galay duwal waaweyne ay yimaadeen taasi waa siyaasadda xukuumaddan oo ah xaqiijinta waxa weeyaan in aanu nimankaasi kala guranno adduunyadana waxa weeye aanu u tusno inaanu nahay dawlad isku kalsoon xukuumaddeedina shacbigeegu ay aamineen isla mar ahaantaasina xaqiijinaysa waxa weeye qaranka siyaasadda arrimaha gudaha ku soo inta waa intuu Siilaayo Turkigu ku qabtay laba dawladood oo wada hadlay madaxweynuhu haay waxa leedahay meesha la yiraahdo ku soo dhawow ku soo dhawow qodobada ku soo dhawow intaas waa narration kulmiyu ka dhashay wana madaxweyne qiimo waa wada hadalkii Soomaaliya lagu furay Turkiga siyaasadda arrimaha dibadda waxay dhamayso qodobada ku soo dhawow dhamayso waxaan u sameynay wasaaradda arrimaha dibadda inaanu tayeyno isla mar ahaantaasina u dhiibno madax xaqiijin karta inuu u cugto u dhiibo madaxweyne biixi waayo dadka shakhsiyaad ka baxo maxaad ka qabatay shakhsiyaad akhlaaq la'aanada dunyada shakhsiyaad iska daa de waxa ma midha maxaad ka qabatay waa inuu qiyam lahaado maxaad ka qabatay waa inuu akhlaaq lahaado maxaad ka qabatay dad akhlaaq laanu dirnay waxa weeyaan aan caytamin oo dalkan intuu masiirkiisa qaaday garanaya halkay wax kaga xidhan yihiin waxay qabteen oo kuu sheegayay in aan waxa weeye dhaqaalihii ku bixi lahaa ictiraaf raadinta shalay u dambeysana miisaaniyadda dalka waxa qayb weyn ka ahay oo markii saacad shalay cali BBC shalay ay wareysanaysay ay weydiisay maxaad intaa lacagta intaa leeg aad ugu bixinaysaan ictiraaf raadinta waa xaqiijin madaxweyne biixi 3 sano joogaba uu miisaaniyadda ugu daray narration ka waxa weeye dawlad tago bulshada soo qaado sad buuga kulmiyeedka miisaaniyadda soo qaado waxama wadatida balataasi wararta dhageysade lana been ma watee runta ku wataa halkan runta ku wataa waxaad qabatay halkan way nadiif qabtaa waxaad qabtay shay waxa ku sheegaya maxaa siyaasadda arrimaha dibadda ka qabanay ummadda siyaasadda arrimaha dibaddu ay tahay oo ku qodontaa oo xaqiijinta madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisana ay tahay dalkani in uu yeesho qaran madax bannaan taasna waxaa xaqiijinaysa xukuumadda madaxweynaha waxaanu tayeennay xafiisyadii safaaradeenu adduunyada ku lahay waxaanu dalka keennay intaasoo duwala oo dawlado waaweyna oo dalkan markii hore waxa weeyaan iyo xukuumadii ka horreeyay ay ku guulaysan waayeen yaa kamid ah su'aasha wariyaha leh Soomaad garan waxa difaaci yaa kamid ah noo sheeg ilaa codkii shacabka ku hadlaa bal ummadda u sheeg markii u horeysay Soomaaliland duwal waaweyn ay safaarada ka furtaan yaa ka furtay dawladda Taiwan baa kamid ah Taiwan tahay Taiwan miya Djibouti baa kamid ah
oo Somaliland xafiis official ku leh oo maanta aad og tahay qaranka iyo xukuumadda madaxweyne Biixi halkay gaarsiisay siyaasadeedu maanta inanka Djibouti waxa way u dhashay dalka Djibouti u dhashay iyo inanta Djibouti u dhalatay ee halkan ilmo maanta ugu dhasho in maanta si rasmi ah looga siinayo warqadihii waxa weeye dalka Djibouti taasina waa siyaasad cad ku timid waxaad arkaysaa furfurnaanta dawladaha jaarka iyo siyaasadda iyo habdhaqanka wanaagsan ee xukuumaddan ay kula dhaqmayso waxaasoo dhaniba waxa weeye waa xaqiijin siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumadda Biixi ay waxa weeye salka u dhigtay waxaan ku diidanahay anigu maba diidayo anigu waxna ma diidayo waxna ma doonayo laakiin wuxuun baan ka hadlayaa tiirka shanaad waa siyaasadda arrimaha dibadda wixii ummadda u qoran baan leeyahay wax laaliyo wax ka fulay ma jirto qodobka koowaad waxaanu ka duulaynaa si Somaliland baahida ugu weyn bulshada Somaliland ay qarto 30 sano waa in dunidu aqoonsataa اعتراف هدية اللي سوق هذا يباه شرنشر ومراه وين الدنيا اعتراف كهذا waxay bartan ku sheegeen inay doorashooyinkiisi baad haysay macna اعتراف la inay 5 qaybood strategically isagu ma garanayaan oo sharaxay walaalkay 5 qaybood inay culays ka saarayaan waxa ka ka siyaasadda arrimaha dibadda si loo xoojiyo اعتراafka Soomaaliland midowga in laga kulmo midowga Afrika وكيل وقارة أيام مقعد ميدوغا أفريقيا دورة سو أرق ميدوغا أفريقيا وكان ميدوغا أفريقيا نقول لك كان كو إن لك كان إيجاد والله بقى إن ميدوغا يوروب يجعل حبنا وجيش إن مريكانك حديد وين وسومال لنا اعتراف كده ما دام سوبر باور كده دونكم يا سيد وشايفين إن لك كان إن جامعة عربتها لولا لك قالوا وسي Somaliland calankeedu caalamka uga xismo qodobkan doonayna inaan ka hadlaa intaas ma waxba ka qabsoomay iima sheegi kareen nin midowga Yurub ka socda iima sheegi kareen nin midowga Afrika ka socda mid igaad ka socda mid jaamacadda Carab ka socda safiir Mareykan ka socda oo Somaliland mid ama loo tagay ama miisaaniyadda ku baxaysa arrimaha dibadda barti loogu talagalay lagu baxay Thailand laba qaawan isma qaadi karayso Thailand iyadii baa bila اعتراف warwaafkii suuqee war balaadiriikaad dunida اعتراف baan ka doonayay anigu dunida اعتراف baan ka doonayay inuu Thailand igu meerastay ma doonayay in dawladaha danahu iga calankayga inuu caalamka geeyo ila mas'uuliyadii muwaadinimo isaga noo haye inuu calankayga caalamka madaxweynaha igu geeyo oo dunida ka birbidho waa tan ka rabay qurba joogta waxay yiraahdeen waxaanu samayn doonaa xafiisyo badan وقرب joogta dunida 3 sanadood 3 safar buu madaxweynaha dalku baxay siilay wan ogeyn inta safar uu baxay اعتراafka wan ogeyn madaxweynaha riyaal موسى 3 سفر أنا ما سبيسه يدكم بلا مدحونا وديرو 3 سفر بو بحي مدحونا 3 سفر اي بحي مid Djibouti buu ku tagay Djibouti macadu amana midna Ethiopia ku tagay soo laba maaha midna Imaaraadku ku tago qalin ku soo galay waxaan ahayn inuu dalka uga baxay isagoo ma sheegi karin qurba joogtu waa muwaadiniin dalkan maal gashaday dhaqaalahooda galiyay naftooda u huray waxay ahayd adaa qaybiyay balikaad waanu dhaynaa inuu taga baxay inuu hay madaxweynuhu tago mas'uuliyadu iska dadka aad sheegayso waxaan dam ka saarnaa madaxweyne waqti ku waxaan wasaaradda arrimaha dibadda war waa muwaadiniin war magacoodu wax ku yahay war waa madaxweynuhu magacoodu wax ku yahay war muxuu ku yahay dadkiisa ugu tagi waay uu soo miday waay leedka kala qaybiye kolba buura tagaysa moodaysa madaxweynaha qaranka qurba joogteega waa ina tagayso madaxweyne biixi tagaya waa ina u qalanto madaxweynenimo war qortaan ma anu ka war wakaalada qurba u abuuran war wasaaradda ma dadka Facebook ka soo aytamay madaxweyne wuxuu doonayaa doodayna isma difaaci karo xukuumadani xukuumadani protocol bay leedahay beentaad umada u sheegtay un baan anigu soo bandhigay wax kale ma beenta iska dhig adigu waa beenaad sheegtay waa daahir iska dhig qurba joogta maxaa lagu sameyn lahaa qurba joogta maxaa yaala qurba joogta waxaa mas'uul ka ah اعتراف ay bixiyaan iyo qorqol joogtaba madaxweynaha jamhuuriyadda maxay tahay marka eeda aad u jeedinayso qurba waxba qaybsamo ka sheekaysaa qurba joogteen maxaa jira ii sheeg qurba joogteen marka dunida caalam iyo اعتراaf laga keenay laga yimaado maxaa lagu sameyn lahaa waxa kala qaybiye kulmiye muxuu ku kala qaybiyay
unitiga qurba joogta iyo dareenka muwaadinimada iyo shucuurta ka abuurmi jirtay UK waanu garanaynaa dowladdiisa ilaa tii riyaalaba calanka Somaliland la wada xambaaranay imikana mid geesta uma eegeen uqdada iyo cudurka cidda dhalisayna waa iyaga wala xalin kari lahayn maxaad ka qabtaa horta waxaan maxaad ka qabtaa arrintaa uu sheegay maxaad ka qabtaan siyaasadda arrimaha dibadda xukuumadda waan kuu sheego siyaasad cad bay ka leedahay waxaan qurba joogiyo waxaan ku wareegaysanaya barkhadna wasaaradda arrimaha dibaddu waxay samaysay la yidhaahdo wakaaladda qurba jooga jamhuuriyadda Somaliland miisaaniyadda qarankana ku jirta wakaaladaasana qaranka oo Somaliland oo dhan u qaabilsan wixii qurba jooga madaxweynaha qaranka Somaliland waa madaxweyne mas'uuliyad kama saarna la Soomaa waxa weeye hadda iligoo ummaddu la hadlaya la soo wuxuu leeyahay mas'uuliyad kama saarna dawladda waaweyn bay la joogaanay sharcigooda ku haystaan ii sheeg ma dhibaato ku haysto mas'uuliyad kama saarna ma xukuumadda xalili weydaad leedahay mas'uuliyad kama saarna waxaad leedahay way tahriibeen waxa weeyaan dad baa meel lagu haystaa laga soo furfuri kar lahayd leedahay nish waxa weey damaanadiisa iyo wuxuu qaadanayay iyo waxa weeyaan noloshiisa oo dhan UK ay damaanad qaaday waa muwaadin Somaliland maxaa lagu sameyn lahaa waa ka cashuurta bixiya gaariga ku wadato waxa lagu sameyn lahaa waa ka dalkan baal gashaday qurba joog maalin walba lacag bay ku soo diraan way ku soo ururi qodobka ugu dambeeya ku soo ururna waxa weeyaan 2 sanadood baa xukuumadda madaxweyne biixi uga hadhay waqtigii muddo xileedkiisa qodobadaynu ka wada hadlayno ee ama wax laga qabtay ama aan wax laga qaban maxay tahay rajada aad ka qabtaan in aad qodobadii siyaasadeed ee xukuumaddu ay doonaysay inay wadanka ka hirgeliso 5 sano ay ku dhamaystiri karto ay ku qaban karto ma kula tahay baahiyihii hadhasanaa oo dhan inta la qabtay inta dhiman marka la isku daro maadaama wali waqtiidii harsan shantaa sano ballanqaadka iyagii xukuumaddan waxaan ku wari inta ugu badnayd 158 way naga dhamaatay labada sano waa faakahaysi iyo waxa weeyaan iyo wixii kale ee qarankan aan u ballanqaaday de mas'uuliyad baa laga saaranayo ilaa waxa halkan ku qoran maaha xukuumaddan waxay hirgelinaysaa dalkan waxa weeye masiiro waaweyn inaanu gaarsiino waxa weeye beesha caalamka oo ka mid noqdaa nootaal arrimaha uu ka hadlaya barkhadna waxa weeye wadista dadka iyo qurba jooggan iyo waxaan uu ka hadlaya waxay ku xidhan tahay dadka maanta doonaya inay dalkan ilaa dalku maaha un doorasho madaxtooye la gale waa doorashadii belediyada iyo baarlamaankii iyo guurtidii intaba saddexdaas sana xukuumadda maanta joogtay miisaaniyaddooda way naga dhandhido waa noogu darnay cidda hortaagnayd ee lahayd waxa weeyaan waanu dawaqsanno gagabkii oraan waxa weeye kolba commission iyo kolba maxay iyo ku wareegaysanayay xisbigooga ahayd arrinta maanta aan kaga furfurnay inay doorasho dhacdaana waxa weeye war doorasho ku noqon waa sharci taas inaanu soo hormarin waa ta kaga gilgilsiisay og fashilkooga siyaasiga bulshada og inay ka baxayaan haddii uradii la furo markay arkeen waatay doorashadii ku ogolaadeen commission shalay ay diidanaayeen ay lahaayeen waa qaayimiin ay khubaro ugu aqoonsadeen waynu ka hadalnaa waxaasoo dhan marka waxay gaadhaynaa xukuumaddani waxay ummadda u ballan qaaday 85% wayna dhammaystiran tahay waananu gaadhnay waananu xaqiijinaynaa ishaana macalina dadka Somaliland hal mid bay ka ilbixeen waxa weeye ku soo afmeeraya debatekeyga waxay ka ilbixeen waqtigii Somaliland inaan afbishaara oo meel kaligii taagan oo beenaala ah oo xishoonaynin oo madaxda qaranka caaya uu wuxuu sheegi lahaa way ka ilbixeen labada sanadood ka filaysaa inay ku dhamaysto qodobadii xukuumadda horta luuqad siyaasi inaan ku wada hadalno ta siyaasiyiin bay nahay baa haboon Cabdinaasir wuxuu 2 sano noo hadhow faakahaysi meeshu mamarfish lagu qaylaa mina dawladda dadka waa adeegaysan Portland weejku ummadda kula hadlaya waan ku dhageysanaya anigu waan ku dhageysanaya qodobka labaad wuxuu qiri kari lahayaa awood darrada iyo hogaamin xumada dalka ka jirto qiri kari lahayaa markuu ugu leeyahay waxa la midayn kari lahayaa qurba joogta waxaan wax ka qaban kari lahayn maxay tahay arrimihii dibadda dad milis waa weakness aan leenahay waa habitaanka adbaqad qodobaan oo hadda wuxuu sheegay madaxweyne waqti kuma waa siyaasadda xukuumadda madaxweyne in xididada loo siiba in dadka qaranka laga baado waa maanta madaxweyne biixi dalkani ka dhaxlaya wey ama ka naxana adana wuxuu yidhi anigu kalsooni baa iga muuqataa dood aqooneed baan keenayaa kama dhexgelayo wuxuu yidhahdaan ka jawaabaya waxa weydiiyo markaan hadlayo dharraqdaas waya ilaa maantoo dhan anigu waa ka almuumin laa beenta lama dhegeysta waa laga jawaaba qodobka labaad xaqiiqo kuma hadlaysid qodobka labaad
ee meesha yaallaa wuxuu ka hadlay uu yidhi guulaanu gaadhay guulihii midh allaaliya midh buuggaa uu ka sheegay walaa arrimo dibadeed walaa caafimaad walaa wadada ceerigaaba shalay dadka u sheegay soo ratay wadada booramiya labadii sannadood ee u hadhay ilama aha 3 sano waxay ku qaban kari waayeen inay 2 sannadood ku qabanayaan waaba dhamaystirnay maxaan u qabanaa adduunyadan lama arag qof qofnimadiisa ku meel mari uu kari waayey oo intuu xisbi galo siyaasiyiinta Soomaaliland maanta ka jira mashaakilaadkeena haysta waxa kamid ah intuu xisbi galo xisbigii isagoo war u kala qaaday inta xilkii laga qaado qof banaanka taagan intuu caayo hadday ay cidi ku helaysa adaa afayeenka kulmiye ku helay ayda maxamuud xaashir oo ayda maxamuud xaashir oo maxamuud xaashiyo maxamuud xaashiyo bariye jirtadana jirta xilay magaco markuu madaxtooyada maxamuud xaashir ma naga saragnay adaa timaa u jeedi jireen labada dowladda ma ka filaysaa ku dhamaystirto waxyaabaha ballan qaaday maadaama 3 sano dhamaadeen ma sababtaan ugu filan maxay tahay horta tima jarida iyo kabaha iyo waxan horta dhigayso may horta waa profession aniga aabahay adeerkay awowgay ibka inaan xil helay muwaadin baan wahay inaan xil helay baan wahay intaan tacab waana dhigayso dad professional oo shaqaysta waan boqorfad ana ku ooya war dad professional war dad professional war shirab maxad professional maxad ugu shaqaysta maxad ugu weydaa karaamo leh oo muruqmaal oo dhigooda maalabaan anagu maqarafad inta hargeysa la soo maqarafad kuma dawrsan karaamadana gobol aqooneed dad ka soo jeedaay warsiga xisbiyada war ogolow gaalada hadaan la hadlada aqoon alla yaa kula hadlay waxbarasho jaamacadda abuurka siyaasaddan isku qabanay waxbarashadan isku qabanay adigoo mahadsan bar hadalku ka xidhi nuxurku wax weeyaan doodeenu inaynu bulshada fahansiino halkaynu taaganahay si qodobkii su'aashiidii mar labaad ku celinaya maxaa laga fili karaa xukuumadda kulmiye ee madaxweyne biixi in ay 2 sanadood ee soo socoto ku rajadiinu maxay tahay qodobada meesha aanu su'aasha ka hadlaya kama shakhsi meerar meesha ma yaalo qodob baynu ka wada hadlaynaa maxaad ka filaysaan anagu waxaan ka filaynaa inaanay wixii loo doortay aanay qaban karin 3 sanadood waxay ku qaban weyday istiraatiijiyad iyo siyaasad ay ka yeelan weyday intaan sheegay caafimaad iyo biyo ictiraaf iyo caalamka loola xiriiro iyo horumar iyo dekada iyo maxay tahay meesha la yiraahdo ay ku qaban kari waayeen meesha ay ku qaban kari waayeen dood inaanad hayno miskiin tahay ardo masabid ardo intaan hadlay dood hoogan war dood jirida ku taagan baan ugu jirida inta taa ku qaban kari waayeen sanadii 12 bilood oo hore kuma qaban karayaan daawadayaal waxaynu intaasi kusoo gabagabayn doonaa doodeenaasi u dhaxaysay afayeenada xisbiyada kulmiye iyo wadani oo kala metelaya xisbiga xukuumadda ee dowladda iyo xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu ka cudur daaranaynaa inaanu casuunay xisbiga mucaaradka u cid balse ay arintaasi ka cudur daarteen inay doodaasi ay ka qayb galaan doodeena ayaa waxa ay ku qotantay 3 sanadood ee ugu dambeeyay ee xukuumadda madaxweyne biixi ay xilka haysay maxaa u qabsoomay maxaa la taaban karo meesha yaala ma jiraan maxaan qabsoomin halkay dhaliishu ka jirtaa maxaa bulshada Soomaaliland ku noqday maxaanse ku noqonin in la isxisaabiyo xisbiyada qaranka oo ay bulshadu aragto waxay qabsadeen iyo waxaanay qabsan waa mas'uuliyad saaran ummadda Soomaaliland oo ay codkooda ku doortaan xukuumadooda ay doonayaan si taasi ay dadku u arkaan wixii qabsoomay ayay miiska u nimid barnaamijkan waxay idin la socodsiinayay MMTV waxaan mahad gaar ah u naqayaa afayeenka xisbiga xukuumadda ee kulmiye cabdinaasir buuni iyo afayeenka xisbiga wadani barkha jaamac batun oo labadooda mahadnaq gaara aan siinayo iyo sidoo kale howlwadeenada dooda igala shaqeeyay ee ah Sakariye iyo Maxamed Mawlid iyo bahda kale ee farsamada ee MMTV waxaynu iskugu iman doonaa doodo kale oo la xiriira arintani oo la xiriira qodobada muhiimka ee dimuqraadiyadda qabaa'ilka ee doorashooyinka iyo nolosha dhaqan-dhaqaale ee ka dhex jirta Soomaaliland oo aynu sii wadi doonaa doodaheena iyo masraxyada aynu iskugu imananay ee barnaamijyadan la xiriira aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa barnaamijka waxaan idin la socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdiliga tan iyo kulanti dambe haddii Allah awood yiraahdo waa MMTV oo idin dhaafay
muuqaal technology waa hoyga elektrooniga iyo guud ahaan teknolojiyadda waxa ku dhan oo aad ka helaysaa qaybaha kala duwan ee kombiyuutarada sida laptobyada moobilada tiifiyada kamaradaha nabadgelyada ee loo yaqaan CCTV iyo qaybaha kala duwan ee elektrooniga oo tayo leh dhammaantood waxaad ugu soo hagaagaysaa muuqaal technology oo kaaga keentay suuqyada caalamka muuqaal technology waxay leedahay laba qaybood oo muhiim ah oo ku yaala bartamaha suuqa Hargeysa midda koowaad waxay ku taalaa galbeedka masaajidka Calimataan fooqa sarifka xarunta labaad ee cusub ee muuqaal technology waxay ku taalaa dhismaha Durdur Mall jidka loo maro masaajidka Rashiid oo ah jidka wadnaha amaba suuqa dhexe ee bartamaha Hargeysa wixii faahfaahin inta sideena kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaga muuqda muuqaal